baabajay haddii curyaannimo lagu dayn waayo inuu caasimadda joogo oo dil loogu goodiyey kuwa aan garasho lahayn gardarre ay ku aadeen waa ka ayaa abtiyaalo yiri ilaan abti waa beera abtiyaashiis madasha keena ma la ogolaanayo in lagu xadgudubtana iyo handadaadna waxaa waaye waa la xisaabtamay. bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan Soomaali weyn meel baa dunida ka joogtaan allaha weyn waxaanu ka wada rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo camal khayr mid kastoo muraad ilaahay waxaan weydiinayno muraadkiisa mid khayr uga dhigo waxaanu sanna oo caafimaad taama siiyo kan geeriyooday jannadii udgoonad hooy way yeelo kuwa laga geeriyoodana samir imaanu ka siiyo warashaysta ilaahay waxaan weydiinayno dhasha u barakeeyo kuwa dhal sugayeen dhal badan u barakeysanaa siiyo lama horaan dalkeena iyo nabada iyo bulshada Soomaali weyn oo badan allaha weyn ugu saleeyo baabajay ونرى اللي راه عريان وحنا وقعنا عمل حمدي يعيل كي لا دوعنا سوقنا waa ka qayl dhaamay waryaabtii ahay hadaba barnaamijkan maanta waa caasimadda muqdisho aan ishaare gaar ah siinayna waxa weey tilmaanteenu tahay caasimadda Soomaaliya waa muqdisho kolka la tilmaamayo ama ajnabi loo tilmaamo muwaadin Soomaaliyeed loo tilmaamo caasimadana waa astaan qaran sida calanka oo kale hadaba sidaan ogsoonahay reer muqdisho waxa badan dadka Suuriyada iyo Soomaalida ku weytahay dadka dareenka wanaagsan iyo dadka damiirka wanaagsan iyo danta makaanaysa ee dalka iyo dadka kuwa dareenkoodu yahay ayaa ku badan asaate waxa jira in yaro kooban oo fara ku tirisa aan aqli iyo garaad iyo garasho teetoona lahayn oo curyaanka waxa lagu aadayo ciilka lagu la doonayo ay aragtidoodu tahay marka kuwaas waxa doonaya maanta inaan tilmaan siiyo oo aqligooda foorara balan isku dayo inaan wax dareena ay wax ku qaataan siiyo baabajay horta aragtidiisu ka hadlayso aan cid ceeb la doonin ayuu farmaajo taageeradiisa muujiyo waa maangaaba waan garashaday ayaa u goodiyay dil baa hataa hadafkooda noqday in xabsiga la dhigayo hadaba baabajay inta mid ku ekaada ma ahay yaabtiyaalo haddii muqdisho marti looga dhigay oo la ilowsiiyay in caasimadii tahay magaalo uu ku xaragoon karo wuxuu yiri hadaba tana waa oo barbar baan hawiye ka hayay nin murasada abtiyaashiisii taas waa tabax keentay kuwii garashada liitay aqligooda hooseeyay ku xishmeen way curyaannimo iyo caasimaddiisii joogo inay dib u degtaan ninka ragga xilligu uu kibro ama uu araweeloodo iyo hoygu ku araweeloodo waa meeshu in la yaalka ku yahay in la yaalka waxa la yiraahdaa wiil abtiyaashii la jooga kuma radu abtiyaashii la joogo dhaqanka Soomaaliyeed iyo tilmaanta aan la hureen waxa inuu kibir hadlo adeerka maanta wax kasta tiraado ariyaha shoobu kooranaya laakiin abtiga madaxu ku salaxaya watan kale in la yaal waxa la yiraahdaa ninka xididkii la jooga in raga xidid kuma dheerado inuu ceeb ka sheego ama canaan la doonto iyaguna kuma dhiiradaan inay caaro iyo wax calool xumo u keena ay ugu dhiiradaan waa mid oo baabajay aragti abti ayaa caaw lagaga leexday asaate farmaajona waxa weeye inkastoo madaxweyne qarar ahaa oo qabiil uusan ahayn inta qabiilka ku ishaareynaysa ku jaayfeynaysa waa mid inay xididnimada kaga xishooda xushma gaaray ku lahaayeen marka waxa weeye sidaan ogsoonahay caasimadda Soomaaliya muqdisho marxalado badan bay soo martay muqdisho intii Soomaaliya ku kala maqnay muuqeedu sida tan u ahaa markii ay Soomaaliya isugu soo noqotayna muuqaalkeedu waa kan muqdisho markii magaalo qabiil ahayd qaaba kan ay ahayd markii mid qaran noqotayna qaaba kan ay ahayd horta taas waa mid aan dareen ahaan tusaayo inta aan dareenka lahayn intii darajo iyo dareen lahayn dib way ogsooyeen badanaa waxa dhacda oo xataa shacabka kale ee siyaasiyiin ay tilmaamaan dekada muqdisho xoolaha ka yimaada airportka muqdisho xoolaha ka yimaada waa wax u gaar inay noqoto wala mahoraan waa caasimaddu marba waa inay heshaa waxyaabaha deegaanada kale laga helo wax ka badan hasa ahaatee mid baa xasuusin mudan iyo in xisku uu xasuusto Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay inta uu madaxweynaha noqon ninkii ka horeeyay oo madaxweynaha Soomaaliya noqday wuxuu ahaa ilaa cimriga u dheeray madaxweyne Cabdiqaadir Salaad Xasan madaxtooyada Soomaaliya ee muqdisho uu gali waayay waxa iridaha ka xidhay cagta kala daarina waxa ahay gacaliisu iyo kuwii garab noqon lahaa maalinta hadda ka dib muqdisho muuqeedu see ah maanta waa see aragtida qabiileynaysi qool waxaan ahayn oo qaran ahayn si baan ku tilmaamayo Cabdiqaadir Salaad Xasan inuu madaxtooyada gali waayo
yaa garab ku siin waayay Soomaali kale taa mise intuu gacalku u arkay yaan la garaad ka ahay intuu gacalku u arkay yaan la garaad ka ahay Cabdiqaasim xilkiisa kolka uu dhamaaday waxa xigay oo madaxweyne noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed maal shisheeye mid la siinayo Turkiga gargaar uu siinayo lacagtoona ma ahay lacagtaas oo dabacay ka imaanayso shacabka Puntland iyo magaalada Boosaaso dekedeeda ayay ka imaanayso xasanna waaga waa joogay oo Muqdisho macallin ka ah hadaba weli ma aragteen qof reer Boosaaso oo tilmaamaya lacagtii dekeda waaga Boosaaso ka timiya haatan inuu aragno waxay horseeday iyo heerka Soomaali marayso iyo bilicda Muqdisho oo sheeganayo leh lacagta xaq baan u lahaa walaal intii burburku jiray ee Muqdisho waxa weeye muuqaalka kale ta lahayd xaalad qabiil iyo waxa weeye leecitaanku uu jiro dekedeeda ay xirnayd magaalada Soomaaliya ay ku soo hirato Boosaaso dekedaasina ahay wali dad tilmaansanayo dareen sheeganaya ma aragtay inuu Boosaaso ka yimid inay dadka Soomaaliyeed wax ugu daraan maaha hadii abaar ay dhacdo hadii qarax uu dhaco hadii biyo ay soo daataan ma aragtay marka xabadda aragtida liidatay ee dareenka cunfiga xambaarsan waxaan u tilmaamaya war qabiil litacaarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum wiya ilaahay baa tilmaamay hasaahate kolkay qaran noqoto wax ka wanaagsan oo tilmaami ma jiraan maanta anigu yaasi ahaan magaalo Soomaaliyeed aan niyad ahaan tagi lahaa ama aan jeclaan lahaa inaan tago hadii dooro la oran lahaa Muqdisho aan oran lahaa sababtuna waxay tahay anoo tagay magaalooyin badan oo Soomaaliyeed waa magaalada kaliya aan tagin oo dareen ahaan aan doonayo wax ay jeclaysiiyeen wax weyn aan tago magaca caasimada ku xarnan weeye Muqdisho waa caasimada Soomaaliya dareenka ay jeclaysiinay inaan xamar tago ama Muqdisho tago maanta ama aan daneeyo ama magaalooyinkan ka imid deegaanadeedii ka doorbida waxa weeye caasimadii Soomaaliya aan tagay magaalooyinka hadii ay la mid ahaan lahayd mid ishaare gaar ah iyo tagitaankiisa dareen laabimay marka waxa weeye magaalo waxay maamuus ku yeelataa ay bilic ku yeelataa oo macna ay ku yeelataa oo muuqaalkeedu ku horumara wax qaranimo ay qabiil ma dadka aragtida tan ma garanaysaa mala awaalka la wareegaya leh Muqdisho hadii aad ku hadasho waa lagu dilaya Muqdisho hadii aad fikirkaaga ku dhiibato waa lagu caayaya adeer gacal aragtidiis ma aha waxaas iyo magaalo kabaceed iyo waxa weeye quruxdeed iyo dad soo dhaweynteed ma walow aan ogahay dadka dareen kale ee dadnimada leh ee darisnimada wanaagsan inay ku badan yihiin hadana matalaadiina iyo sheegashadiina waxay ku tahay xumad iyo xumaan iyo waxaan xaqiiqo wanaagsan magaalada u keenay magaalo waxay horumar ku gaadhaa soo dhaweynta dadka magaalo waxay heer ku gaadhaa bariidinta dadka magangeliyasiinta masaakiinta iyo dadka maatada ah ee waxa weeye riyaamada marka waan ognahay qabiil halka uu dhigay heerkeenu ku gaarnay hawshan ka soo mar waxa lama huraana inaanu danka doono waxaanu darajo ku helano horumarino ka qaadeen taasuna qabiil ma aha waa qaranimo barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayna gacalo warsani war khayr assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.